maalinimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay 6 bisha January sanada 2018 waxaa jirta in la sameeyay waxyaabo la xiriira dhanka suuqa. Chelsea ayaa diyaarinaysa dalab 50 milyan oo pound ay ka gudbin doonto wariyaanka wadanka Uruguay iyo kooxda Paris Saint-Germain ee lagu magacaabo Edson Cavani iyadoo 31 sano jirkan laga yaabo inuu faaruqiyo Parc des Princes ay ku ciyaarto kooxda PSG. Sunday Express ayaa lagu qoray. shabakada The Observer-na waxay leedahay Arsenal ayaa wada hadallo ku aadan xidiga qadka dhexe wadanka Spain Denis Suarez la furatay Barcelona waxaana rajaynaysaa in bisha January ay la soo wareegto 24 sano jirkaas. Naadiga Portsmouth ayaa diyaarinaysa iska diiday lab kasta oo kaga yimaada naadiga Chelsea kaasoo ku aadan wariyahanka wadanka England Coleman Wilson oo 26 sano jira. Sunday Mirror ayaa lagu qoray. shabakada Talksport waxay leedahay daafac reer Brazil ay kooxda Chelsea David Lewis 31 sano jira ayaa sheegay in Chelsea ay tabi doonto Fabregas 31 sano jira ee laacibka reer Spain la filayo in uu ku biro Monaco uu yahay mid kamid ah xidigaha ugu fiican ee ka ciyaara dalka England sanado badan tan iyo 2003 markaas oo Barcelona qaybteeda B-da uu ka yimaado. tababaraha kooxda Atletico de Madrid Diego Simeone ayaa sheegay inuu heshiiska kooxdiisa uu ku siiyeen doono xidiga bartilmaameedka oo kooxda Manchester United iyo naadiga Inter Milan ee Diego Godin oo 32 sano jira. Sunday Express ayaa lagu sheegay tababarihii hore kooxda Manchester Jose Mourinho ayaa iska diiday in uu xil tababarnimo u qabto naadiga Benfica kadib markii ay dhawaan kooxda Portugiiska iska ceyrisay macalinkeeda Rui Victorio. The Record in Portuguese ayaa lagu qoray. David Moyes ayaa isna macalin u soo Manchester United ayaa xiiseynaya shaqada tababarnimo ee kooxda heerka labaad ee dalka Ingiriiska ee Stoke City. Daily Star ayaa lagu qoray. Inter Milan ayaa wada hadal ku aadan 22 sano jirka Danishka ee Jacob Anderson la yeelatay naadiga Sampdoria oo lala xirinayay si lamid ah kooxda Tottenham. Corriere dello Sport ayaa lagu qoray. Manchester City ayaa heshiis 19 sano jirka qadka dhexe wadanka Spain ee Brahim Diaz ugu biiray Real Madrid ku dartay canshuur Manchester United taasoo lagu wada inay dhameystirto haddii uu Diaz u dhaqaaqayo koox kale inta ka dhiman waa intaas kadib City waxay heli doontaa 15% canshuuraadka laakiin haddii uu dhaqaaqo United City waxay heli doontaa 40% canshuuraadkaasi. Talksport ayaa lagu qoray. laacibka dhexe ee kooxda Porto Joan Quintero 25 sano jira ayaa 3 sano la soo dhaafay ama ku qaatay koox ka dhisan dalka Faransiiska iyo dalkiisa isla markaana wuxuu ku sugayay kooxda Argentina River Plate. wuxuu daa ka rogay in wakiilkiisa uu la kulmay saraakiisha Manchester City isla markaana uu heshiis suurtagal ah u la gaaray. waxaa lagu qoray shabakada lagu magacaabo Sunday Mirror. West Ham United ayaa qorsheynaysa in dalab kala saxiixday qadka dhexe kooxda reer Talyaaniga Inter Milan Antonio Candreva waa 31 sano jir. Corriere dello Sport ayaa soo kale lagu qoray. xarfaanta wax ku weydiisatay Real Madrid ayaa daawatay daafac reer Brazil ee kooxda Porto Eder Milito oo 20 sano jira waxaa soo kale la xiriirinaya naadiga Manchester United. Mark ayaa qortay. shabakada goal.com waxay qortay Bayern Munich ayaa naadiga Dallas kala soo saxiixan doonta xidig 20 sano jira xulka Mareykanka Christian Richardson 18 sano jira ayaa iminka amaah ugu ciyaara koox ka dhisan Bundesliga. gool sidoo kale waxay leedahay tababaraha kooxda Barcelona Enrique Valverde ayaa ka fikiraya xidig cusub in kooxda lagu soo daro suuqa bisha Janaayo laakiin dhaqdhaqaaq badan lagama filan doono baa leeyahay xarada Camp Nou waxayna taas ay keenaysaa in ay mar kale suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ay ka raadiyaan ciyaaryahano aan in badan magac u lahaan doonin naadigaasi. saas ay tahayna waxaa hadda jira wada hadallo hoose ay kooxda Barcelona ku doonayso inay ku soo qaadato ciyaartooy waaweyn si ay u noqdaan laacibiin mustaqbalka wax badan ku soo kordhin karta ayaa la leeyahay maamulka kooxda Barcelona. dhinaca kalena daawadayaal qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay ee barnaamijkeena waxaynu bal eegi doonaa daawadayaasheena hal iyo laba ee ku aadan asxaabta fikirka nala soo